kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Dalable Media waxaan si toos ah idin geyn doonaa Stadium Muqdisho oo uu ka socdo banaanbax hoogan oo ay ka soo qayb galeen boqolaal shacab ah iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kaasi oo looga soo horjeeda aqoonsigii ay maamulka Israa'iil aqoonsadeen maamulka Somaliland. haddaba waxaan idinkaga dhex bixi doonaa qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jira abwaaniin culumo iyo sidoo kale nabadoono iyagu aragtidooda ka dhiibanaya aqoonsiga ay sheegtay maamulka Israa'iil inay aqoonsatay maamulka gobolada waqooyi ee Soomaaliya. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان هل كان صلاة أقول بنا هي شعبك الصومالي ميل الجوغان الدنيا دافع هذا دلك يودي بديسا وحان نقول سلام يا سلام إسلام أنت أسكدب وهل كان سوكا كان مانتا أو أرضي دينا يو أودياشينا يو دمر كينا يو علمدينا دمان aan halkaan u taagannahay arrinkan oo lagu soo dirsay oo xaadis nagu ah oo aan caado u lahaan jirin in saas oo kale loo dhaqmo arrintaas inaan muujino inaan ka soo horjeedno haddaan culamadii dalka aan ka mid nahay shacbigana oo nagu taageersan yahay arrintaas wixii maanta iskoolo ahaa waa la soo wada xiray wixii shaqaysan lahaa halkaana la wada joogaa cod dheer waxaan ka leenahay cod gaabanba waxaan ka leenahay arrintan oo yahuud in dalkeena Soomaali gobol ka mid ah ay imaado oo ay saldhig ka samaysato si ay ugu dhibaateedo ummadda islaamka oo dhan bisifa khaas ah dalkeena oo Soomaalina asigoo la daalacdacaya dhibaato iyo abaar iyo wax badan in hadana dhibaatadaas naga soo kordhido oo yahuud halkaan noo soo degto ama Soomaaliya soo dhaxgasho aad iyo aad aan ugu soo horjeena arrintaas waana ka midaysanahay lumiyo caama bulshada weyn dhamaanteedii ayay muujinayaan maanta arrintaas inay ka soo horjeedaan oo suurtagalna aan aysan noqonaynin arrintaas ayaan leenahay halaga joogo qofka qaban qaabinaya ama gaaladaas yahuudda soo dhaweynayo ha ku waantowo yahuud waa la og yahay waa ashaddu naasi cadaawatan lilladina aamanu mu'miniinta qofka ugu daran cadaawada waa yahuud iyo walladina ashraku marka yahuudi ashaddu naas cadaawa ahayd in maanta dal muslim ah liiraado halagu soo dhaweeyo arko arkayno waxa dib ay ku hayaan walaalaheena Falastiin iyo Gaza dhibaatada ay maanta u geysanayaan ognahay dhiigooda xaqdarada ka daadinayaan oo Soomaali maanta laga filaayay waan horan u taageeraysay in u gurmuto walaalahooda muslimiinta ah waliba dal dhamaantiisa meesha hadda la rabo in la keeno oo Somaliland agteeda ah ayaga nooga horeeyay inay u gargaaraan oo muslimiintaas maalkooda iyo naftooda ay u xur wax kasta ay bixiyaan ayaga ugu horeeyay maanta marka ceeb ay nagu tahay in gaalada yahuud ahayd oo dhibkaas muslimiinta ka hayday muslimiintii jasad waaxid ahaayeen oo qaarkeen saas loo dhibaataynaay oo xaramkii muqaddaska ahay baytul maqdis ihaanada ay u geysanayaan dadka ay ku tukanayaan dhibka ay u geysanayaan anako arkayno u jeedno inaan dhahno dalkeena ka soo dhaweynana wax la qaadan kara ma aha waan ugu caqlicelinayna dadkii arrintaas ay falkaas ay ka kacayaan waxaana la og yahay yahuud haddii lala dhaqmi karo lala noolan karo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay la soo dhaqmi lahaa madiina markuu aaday yahuud sukaanul madiina ay ka mid ahaayeen wuxuu isku dayay in wada noolasho iyo wada deganaansho la kala saxeexdo oo lagu hashiyo madiina ilaalinteedii in lagu wada hashiyo wasiiqo oo caan ah wasiiqatu saxiifatul madiina ayaa qoray nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam darafay ka ahaayeen yahuud waxa bay ka saxiixeen markii damana 5 sano gudaheedii ayay ballankii buriyeen oo waxay damceen in dhibaato badan ay islaamka u geystaan waxa ka mid ahayd bal rasuulkeena kaleey sallallahu alayhi wasallam sharafta badnaay inay khiyaamayaan oo soo meel fadhiyo jidaar darbi fadhiyo oo asaran masaalixdii lagu heshay kamid ah oo fulinayo ay damceen darbiga ka soo dumiyaan ilaaha ugu digay waa ka soo baxay mar kale waxay sii damceen arrinta ka khatarsan oo khatar ah ballankii la galay oo madiina ilaali ah inay burburiyaan oo khiyaano sameeyaan oo khiyaano waqtigaas ugu weyneed ah gaalada markay isbiirsan qaswatul ahzaab waa ogeydeen dhufeesaa la qotay madiina inta la difaac lagu ballamay yahuud ayada burisay oo ay damceen dhinacan bani qurayda kuwa la yiraahdo dhinacood inay baneeyaan oo gaaladii ay ka soo galaan oo gaaladii meeshaas madiina ay ka qabsadaan ilaaha shartooda ka badbaadiyay gaaladii ayaa ilaahay dabeel iyo junuud aan la arkayn ilaahay ku diray
saasaa looga badbaado ilaahay ka badbaadiyey marka islaamka taariikhiisa waxaa lagu ogyahay dhibaato kasto oo dhacayso oo islaamka dhexdiisa ka dhacday yahuud inay sabab u ahayd ikhtilaafkan oo hadda khulafaa urajin qaarkood lagu dilay sayidina cuthmaan alkhaliifat araashid uu ku baxay sayidina cali bin abi taalib uu ka baxay ayagaa abaabulay nin yahuud ah la yaqaano tifsi oo mukhaabaraad ah cabdullaahi ibni saba la dhahayo asaa sacigaa sameeyey muslimiintu lama koox buu ku dhigay koox raafido ah oo aalubeedkan aan la jirna ay leeyihiinoo beentooda ah iyo koox khawaariij ah oo ayagana dadka iska leynayaan dhibaatadii dhacday ayagaa sababtaas ka ahaa oo yahuuddii saas lagu ogaa fii waqti nebiyi sal lla ly slam ay dhibaatadooda soo bilaawtay madiine oo lagula heshiyey in la badbaadiyo heshiis lagu ahayo ayaga buriyeenoo ka baxeen maa hadda noo qalantaa annaka wada muslimiin ah soomaali ah oo diinteenna iyo dalkeenna kulligiisa oo iska mid ah dhiiggeenna iska mid ah inaan hadda meel u bannayno oo meel dhibaatadiisa muslimiinta oo laga dhibaataynayo badcas hadday soo galaan xarameenka ay rabaan inay dhibaato gaarsiiyaan dalka yamana ugu soo dhow bay gaarsiinayaan masar aan ka badbaadaynin afrikaan ka badbaadaynin soomaaliyana hadday dadkaasay ka mid tahay marka ma rabno in la yidhaahdo maanta soomaali qiib ka mid ah ayaa dhibkaas noo keentay oo islaamkii meel laga baabi'inayo ee yahuud ay manfad ugu dhigeen in la yidhaahdo ma rabno ilaahayna nooma qadaro yahuud hadday imaadana ayadaa ka baabaci doontaa wakhtigeedaa la gaaray wakhtigii dhagaxii iyo geedaha ay dhahayeen yahuudii baa dhabarkayga taagana yaa muslim tacaal uqtulhu tii baa la gaaray hadday yimaadaan oo meeshaas ay isku soo riixaan ama isku soo hawaystaan waxaan ka digaynaa in meesha ay ka baaba'ay noqon doonto muslimiinta oo idil inay hal jihe noqon doonaan soomaali khaasa in loo midoobi doono dhibkooda ayagana meesha uu dadkii ka baaba'ay noqon doonaan saas darteed waxaan ugu digaynaa dadka hadday leeyihiin soomaaliya baan soo dejinaynaa ha ka waantawaano ilaahayna ha ugu baqano masiirka ummadda muslimiinta ah soomaali iyo keyrkeeda ah ilaahay ha ugu baqaanaan leenahay intaasaan ku digaynaa shucuurteenna maanta oo intaan bannaanbaxaana intaasu ku saabsan yahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa gobolka banaadir iyo intii kaleo hoolahan ay soo abaabuleen oo maanta intaan kulankooda sababka ahaa iyo baxda saxaafadda oo warkeena ay guurinayso aad iyo aad meel sare ha loo gaarsiiyo meel kastoo wax gaari karo ha la gaarsiiyo arrintaas intii ka sabab ahna waan ka mahad celinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yuhuud ilaahay iyo qur-aankiisaa noo sheegay haddii alla kuu roon yahay ummadda soomaaliyeedna way aragtaa waxa qasa ka dhacaya iyo waxa yuhuudu geysanayso markaa ciday ka qarsoon tahay haba yaraatee ma jirto culummada soomaaliyeed ee halkan fadhida nashiidooyinka carabiga ah haddii alla kuu roon yahay in la qaado way ogol yihiin kuwa soomaaligaa hadda hayla qaadeen أحيا ودني أحيا ودني يا صوماليا هي أحيا ودني هدي مليان ميدو ملايين دماتو مديد شيشي نمامولي مايو أحيا ودني يا صوماليا هي أحيا ودني هدي مليان ميدو ملايين دماتو مديد شيئا معمولي مايو هدي مليان ميدو ملايين دماتو مرادك يهود ممل مريدونو هدي مليان ميدو ملايين دماتو مرادك يهود ممل مريدونو marka insha Allah muraadka yuhuuddu ma meel marayo mana soconayo walaalaheen Soomaaliland waxaan leenahay walaalayaalow haddaad aqoonsi rabtiin ilaahay iyo ummadda Soomaaliyeed ay idin aqoonsan yuhuud iyo Itoobiya ha ka raadinina waxaan kaloo leeyahay walaalayaalow calanka tawxiidku ku qoran yahay calankan kalood ag dhigaysiin calaamadda ku taalla bal waxay tahay taariikhda baara oo meeshay ka soo jeeda ogaada oo labadan calan kala fogeeya intaasaan leeyahay waxaa la yidhi dad yaqaan ilaahay dad yaqaan ilaahay yuhuudu ma adeego wax la yeelan maayee yac ayaan ku leenahay iyo weliba yaahuu
yuhuud markasta waa yuhuud wuxuu yidhaana yeelima yuhuud markasta waa yuhuud wuxuu yidhaana waa yasna yuhuud markasta waa yuhuud wuxuu yidhaana yeelima waa maasan yihiin maamulka gobolka banaadir culummada Soomaaliyeed halkan isugu timid bahda saxaafadda cadawgaas waa inaan meel uga soo wada jeesanaa war kale ma yaalo waa maasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasalaamu calaa rasuulillaahi wa bacd waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo ka soo qayb gashay isu soo baxaan shucuurtooda ayagoo ku muujinaa waxaan kaloo u mahad celinaa abaabulka iyo isu keenidda agaasinka wanaagsan oo ay bixiyaan gobolka Banaadir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan intaas kadib waxaan subuxu ku saabsan yahay dadka Soomaaliyeed inay shucuurtooda muujiyaan diidma qayxan inay kala hor yimaadiin isku dayga gurracan iyo damaca gurracan oo ay la soo galeen waddanka Soomaaliya yahuudda ama sahnuuniyadda walaalayaal shariicada islaamka intay ka sheegtay intaan annagu hadda arkayno baraatikal u arkayno ayaa yahuud nooga filan waa shayaadiin insi waa nimanaan wax tarin meel ay ku fiican adduunka lagama sheegin aakhirada adduunba waa qolo la cadaabay marka waxaan ku baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa meel ay joogtaba inay ka dhiidhiyaan isku dayga gurracan oo ay la timiday sahnuuniyaddu kuna soo damaacisay waddanka Soomaaliya qaybo kamida arintaas waa diidnay isku dayga yahuudda waa diidnay waa ka dhiidhinaynaa mana ogolaanayno intii gabar naga nooshahay walaalaheena reer waqooyi waxaan ugu baaqaynaa yahuud wixii ilaahay ka yiriyaan ugu filan walaalayaal waa ka raadina nasiixa ka raadina wanaag ka raadina sharaf ka raadina ilaahay baa idin aqoonsan ummadda Soomaaliya idin aqoonsan ka raadina marna wax la yiraahdo wanaag iyo sharaf yahuuda ka baadi doonina ayagana intaasaan leenahay waxaana ku ognahay dad fiican oo Soomaaliya oo aqli badan oo aqoon badan inaad tihiin ha ku gabagabayna aqligiina wanaagsan inaad yahuud ka raadisaan nasiixa iyo wanaag ka raadisaan ayagana intaasaan ugu nasiixaynaa waxaan leenahay walaalaheena reer waqooyi mar labaad iyo mar koobaadba waad ku kala qaybsan tihiin soo dhaweynta yahuudda isku raaca inaad dhinac u badataan oo ka hor timaadiin oo ummadda Soomaaliyeed adeecadaan oo ku raacdiin diidmada ay kala hor yimideen iyo sahnuuniyadda waxaan leenahay oo kale culumada diinka u badan gobolada waqooyi waa inaad afkaartiina muujisiin waa inaad ilaahay dadka ku baraarujisiin cabsidiisa iyo inaan la soo dhaweyn sahnuuniyadda ama yahuudda dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan dibadda iyo gudaha waxaan ka codsanaynaa inay diidma qayax la yimaadiin oo damaca gurracan oo yahuudda looga horjeedo marka intaasaan islaanahay waa waxtar dadka Soomaaliyeed waxaad ogtihiin inay isku diin yihiin inay isku af yihiin inay isku dagaan yihiin inay waxba u kala soocnayn boqolkiiba boqolna ay muslim yihiin nama qabato waana diidnay inaan yahuud soo dhaweyno waa diidnay yahuud waa diidnay ilaahay dartiis ayaan u diidnay waad ogtihiin walaalaha Falastiin dhibaatada ay ku hayaan boqolaal kun ay dileen boqolaal kun ay dhaawaceen boqolaal kun oo isbitaalada tiilo caruur iyo haween ah iyo dad ah ayay saas ugu tumanayaan man nagama jecla wallaahi billaahi tolla inaysan naga jeclayn waxaan u yeelanaynaa waa masiibo waxaan u yeelanaynaa waa shayaadiin waa ka hornimaday gudaana saaxiibayaal warbixinteena inta ayaan kusoo koobaynaa waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusubtahay inaad channelka subscribe inoo saarto muuqaalka inoo share garayso aragtidaadana aad inagula wadaagto qaybta faallada mahadsanidin